وقل رب زدني علما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan daawadayaasha kuwa nagu xiran boggayaga Facebooka iyo YouTube-ka. Su'aal ka mid ah su'aalihii googooska ahaa su'aasha maanta. Wuxuu leeyahay qofka isagoo na soo weydiiyey xaas iyadoo janaabo qabta ilmo ma nuuji kartaa? Qofka janaabada qaba fuqahadeena iyo culimadu markay ka hadlayaan waxaan loo ogolayn oo waxyaabo kooban oo cibaadaad ah, salaad la tukado, masjid la galo, quraan la akhriyo ama kitaab la taabto, kacba la tawaafo, axkaam sidaas oo kaleeta weeye. qofka janaabada qaba oo qeyb cibaadaad ah waxaa la yidhahdaa looma ogola. marka ama ha la isku raaco daliil cad ha lahaato ama la isku khilaafo yaana lahaanin. waxyaabaha nolosha kale iyo mubaaxaadka iyo acmaasha iyo mas-uuliyaadka kale ee adduunkan la qabanayahay janaabadu waxba kama bedesho, waxna ma xaaraantinimayso. waxaa ka mid a nuujinta. ilmaa la nuujiyey, shaqaa la aaday, guri baa laga shaqeeyey, marka dambena waxaa la isweydiin doonaa cunto ma karin karta iyadoo janaabo qabta? gabadh janaabo qabta hooyadu waxay nuujin kartaa iyadoo dhiiggii umusha ku jirta. janaabadii iyo dhiiggii umushana waxay wadaagaan xadathul akbar. waxay nuujin kartaa iyadoo caado qabta. marka nuujintu waxyaabaha xadadka akbarka ama qabayska waajibiyaay nuujintana ma diidaan, acmaasha kalena ma diidaan. qeyb cibaadaadka ka mid ah weeye waxaa laga hadlo inay diidi karayaan ama loo diidi karaya qofku intuu ku jiro. wabillahi tawfiiq. وقل رب زدني علما.